hor Soomaaliyeey qabiil baa waddankiina kaga timaadeen oo idinka soo saaray North Pole ka joogtaan alla maxaan daaliyay qabyaaladeeda ka dhinac odhanin intayn soo guudigalay oo 6,000 kilomitir soo jarray haddana North Pole ka markaan isa soo taagnay in haddana qabyaalad aynu dib uga shaqeynaa waa waxa aad u foolxun nabigu alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii markuu la dardaarmayay saxaabi wuxuu ku yidhi war waxaa samee markaasuu yidhi haddaan samayn kari waayana markaasuu yidhi sidaa yeel markaasuu yidhi haddaan samayn kari waayana wuxuu kasta uu nabigu sheegaba wuxuu yidhaahdaa haddaan u taag waayana waa nin markaa waxba baan qaban karin waxa la yidhi arrinkaagu adiga hadduu caynkaa yahay kufi sharraka can innaas buu nabigu ku yidhi haddaba adigu sharkaagun dadka ka hayso haddaad waxba qabanaynin waxaa qabo haddaan kari waayo akhiiran wuxuu nabigu ku yidhi adigu sharkaagun dadka hayso bulshada waxaan leeyahay waxtara oo dad waxtara noqda oo dadka wax idiin haya ama maamul idiin haya gargaara wax la qabta ciddii waqti u weyda ama awood u weyda ama wax qaban kari weydana waxaan leenahay war dambigiinu yaraysta sharkaagun bes dadka ka reeb nabiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa yaa muslimka u fadli badan baa la yidho man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi war badan baa sheegi lahaa laakiin waxaan arkayaa waqtigu inuu aad u cidhiidhi yahay shaqana loo fadhiyo markaanu saddexdaa eray baan ku koobayaa waan kuwa horena leeya waa idiin mahadnaqaynaa kuwa dambana leenaya ilaahay xilka ha idinla qabto idinna war sharka iska yareeya oo daratadu ha idinka hadho asalaamu calaykum